waxaan wanaagsan dadkaan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkan waa Somali American TV oo si toos ah ka soo gudbinayno studio-na ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka. daawadayaal iyadoo haatan ay taagan tahay xiisad xoog leh iyo hadal hayn ay dadka badi ay hadal hayaan xiisadda u dhaxaysa imika Djibouti go'aankii ay soo saartay u dhaxeeyay ama ku saleysna khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ay dawladda Soomaaliyana ay ku gacan sayday ayaan eegnay bal ficil celinta dad fara badan oo siyaasiyiin iyo halgamaa ah oo labada dhinac sida ay u arkaan hadalkaasi Djibouti ka soo baxay. waxaan khadka telefoonka ee magaalada Djibouti kula xiriiray Cumar Cilmi Khayre oo ah nin odaya oo halgamaaya kana soo qaatay door weyn xornimadii dawladda ama xukuumadda ama shacabka reer Djibouti ba. Cumar Cilmi Khayre waxa uu kamid ahaa laba nin oo toddobaatanaadkii ama toddobaataniyadii lagu xidhay magaalada Paris xabsi ku yaala iyadoo markii dambe lagu soo bedeshay safiirkii Faransiiska ee 1975 laga afduubay magaalada Muqdisho in lagu bedeshay labadaas nin oo mid uu ahaa Cumar Cilmi Khayre oo aan hadda isaga wareysigan ka qaaday. waa halgama si weyn looga yaqaano wadanka Djibouti isla markaasina runta aan la gaban oo ah wadani aad ama muddo dheer noloshiisa markaasi u quuray in uu shacabka reer Djibouti uu u dhinto ama uu naftiisa u horo. waxa uu joogaa magaalada Djibouti khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. marka ugu horeysa Cumar Cilmi Khayre ku soo dhaw Somali American TV. waan dhawahay aad iyo aad baad u mahadsantahay. su'aalaheeni baynu guda gelaynaa bal marka ugu horeysa aan ku weydiiyo ka Cumar Cilmi Khayre ahaan sida aad u aragtid go'aankii ka soo baxay Djibouti ee ku saleysnaa khilaafkii iyo murankii u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya xalinteeda warka ka soo baxay Djibouti Cumar Cilmi oo sida u aragtaa adigu? warka adiga waxa loo arkaa maaragtay aniga shakhsi ahaan iyo dadka reer Djibouti wixii garaad leh wax u kala cad yihiin waxa loo arkaa warkaas wax lala yaabay uu noqday oo maaragtay yani qaadan waaya iyo noqday dadka reer Djibouti ku noqday sida ummadda Soomaaliyeed uu ku noqday si ka weyn buu warkay wax lama filaan oo la qaadan waayo la qaadan karin uu noqday oo dadka reer Djibouti waa aad baa loo yaaban yahay. waayahay qodobada ugu muhiimsan ee go'aankaasi haddeen dib ugu noqono kuwa inta badan ka cadeysay dadka Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeedba waxa kamid ah in haba yaraatee dawladda Kenya wax faragelin aanay ku haynin wadanka Soomaaliya in dawladda Kenya diyaaradaheeda ama ciidankeedu aanay marnaba soo gelin wadanka Soomaaliya. warkaasina wuxuu ku soo beegmay xilli dagaal uu ka dhexdhacay ciidanka Jubaland iyo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya magaalada Beledxaawe oo khasaare naf iyo moodbalihi uu ka dhacay iyadoo la arkay in dawladda Kenya ay Jubaland u soo dhex martay in ciidanka federaalka ay isdirraan ama islaayaan. arrimahaasi oo dhan waxa dadka aad uga cadeysay labada safiir ee Djibouti u kala fadhiyay Muqdisho iyo Kenya oo iyaguna diiday ama ogolaaday in marka hore Mandheero tagaan hase yeeshee aanay booqanin Beledxaawe dhinaca Soomaaliya. arrimahaas oo dhan marka Cumar Cilmi oo la isu eego heerka inta leeg maxaa Djibouti gaarsiiyay iyadoo ay dad walaala yihiin ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan Djibouti? waa sidaad sheegayso weeyaan waa xaqiiq waan maqlaynay maaragtay ministerku markuu ka hadlayay arrimaha maaragtay aad iyo aad baan u maqlaynay oon u dhegaysanaynay waxa weeye waxa meesha tani waxaan odhan karnaa waxaan horta innaga unbaa moodaynay dad inaga mida oo walaala ayaan moodaynay maaragtay oo nin mas'uul oo wadan xakumo oo walaalo ummadda Soomaaliyeed ayna marnaba ka filaynin reer Djibouti baa yani
wax khalada inaga geli doona iyay lagu talagalsanaa bay ahayd laakiin annaku run ahaan sida uu ninka maaragtay madaxweynaha ahayd waddankan mas-uulka ka ahi nin maaragtay la isku halayn karo oo siyaasadiisa iyo le aragtidiisa iyo wixiisa oo dhani waxaad moodaa wax isgarab marsan baad moodaa waan maqlaynay sidii ay u macnaynayay wasiirku uu macnaynayay wax ku talagala oo lagu talagalay oo uu ma odhan karo ragga ergada abaa waxaan sameeyey laakiin anugu shakhsi ahaan ama dadka reer Jabuuti ina Cumar yaqaan ee siyaasadda yaqaani ee waxa yaqaan dhaqankiisa wax isaga ka soo fulay weeyaan amar la siiyay iyay raggaas ku socdeen caliyow oo ay wax ay Soomaalidu dalbanayeen ku diideen waxa dalka kale ee Kenya uu dalbanayayna ay ku yeeleen oo maaragtay waa wax oo Ismaaciil Cumar ku bixiyay amar oo ragga sida u socda sida yeela uu yiri weeyaan oo sida aan qabno yaani boqolkiiba boqol sida aan qabno waa wax uu ku talagalay oo isagu amar ku siiyay weey shacabka reer Jabuuti sidee u arkaan arrinta Cumaro waa laga xuyahay arrinta caliyow aad iyo aad baan uga xunnahay ummadda reer Jabuuti ilaa markii hadalka la maqlay ilaa maanta dadka reer Jabuuti aad bay u yaaban yihiin waa wax aan la qaadan karin yaani in maanta Soomaali oo walaal moodaysay inay walaalkoodu aalka ugu joodhaadhacay oo uu wixii jiraba hubin doono oo arki doono oo uu soo saarayo wax wanaagsan iyadoo oo ay Soomaaliya isku halaysay oo ay ku talagashay in maaragtay ay wax loo deed ugu daray iska daayay xuquuqdii ay lahaayeen iyo wixii ay doonayeen iyo wixii jiray intaba maaragtay la duudsiyay oo maaragtay laga soo qaaday wax aan jirin oo laga siiyay cadawgii maaragtay dalkooga dhibaataynayay garab la siiyay aad iyo aad bay ummadda reer Jabuuti uga xun tahay aad baan uga xunnahay caliyo waayahay Cumar oo laga yaabo arrintan uu ku dhaqaaqay ama talaabadan uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dawladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inay ku xidhan tahay oo aad uga xumaaday in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqdo Eritrea oo Eritrea ay aad isugu xun yihiin dawladda Jabuuti ma laga yaabaa inuu dagaalku halkaa ka bilaabay Ismaaciil inuu halkaa ku salaysan yahay caliyo waxa weejin Ismaaciil Cumar waxa ma anfara baa tiraahdo Soomaalidu nimayna hubsan bay hebel tiraahdaay Ismaaciil Cumar Soomaalidu aqoon uma leh mana hubsanin waxa weejinin ninka aad moodaysiin ay Soomaaliyiin moodaysa maaha caliyo Ismaaciil Cumar ma aha ninka halka ay Soomaali u joogto iyo halka inuu u jooga ay moodayaan nin jooga ma aha waa nin maaragtay isrog badan waa nin Soomaalida waxyaabaha uu ka doonayo faanka ha ku faaniyaan iyo le ha ku maaragtay weeyaan waxa uu wax iskaga dhigaya nin Soomaali oo wax qabanaya laakiin nin waxa aad moodaysiin ah ma aha caliyo ee Soomaali moodayso ninka ay moodayso maaha Ismaaciil Cumar Eritrea Jabuuti bay ishayaan Soomaaliya hadduu doonayo nadhex gala buu odhan lahaa nabad dalka ajaarka nahay waxaan baan isku haynaa nadhex gala buu odhan lahay arrimahooga kuma uu xumeeyeen arrimaha Soomaaliya waaya maxay keeni kartaa dhaawaca Cumarow arrintan labada shacab waxa weeye caliyo horta waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waan anagu haddaan nahay dadkii reer Jabuuti shacabka reer Jabuuti haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay walaalayaal wixii maanta xaaladdu halka ay joogto waad ogtihiin dhibta annaga na haysatay
iyaa inigana ini soo gaadhay 43 sannadood labada rajiimay isbedilay maaragtay ka Ismaaciil Cumar iyo kii ka horreeyay dhibaatada ay dalkan gaarsiiyeen inagana wayni soo gaadhay oo rajiimkii hore Maxamed Siyaadna way soo gaadhay oo waa la dhibaateeyay baahay oo waxa laga raacay goor walba cadow baa laga raacay inagana kii oo kale iyaa la inagu hayaa waxa weeyaan maanta dhibta ugu weyn ee Soomaaliya lagu hayo waxa weeye dawlad meeshan uu baktiyay uu qurmiyay uu waan xukumaaleeyahay waxa ad ku hayso dadkan wax ka fiican baa Soomaaliya ka iman oo dawlad dimuqraasiyo horumar wado oo ummadda Soomaaliyeed meel u jahaynaysa ka iman iyo xumay weeyaan ujeedadu waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay annaga shicibka reer Jabuuti walaalayaal waan idin garab taaganahay dhibta in haysatana waan ka xunnahay waxa ay dawladda Jabuuti ay samaysay dawladda Jabuuti ma oran karna Ismaaciil Cumar sameeyayna waan ka xunnahay waa wax maaragtay anan marnaba an inii qalmin oo maaragtay ahayn wixii ad naga maaragtay ad waajibkiina ahaayeen inii qaban lahayn waxaan ahayn baa inagu dhacay waxaan leenahay waan ka raali gelinaynaa ummadda Soomaaliyeed shicibka reer Jabuuti haddaan nahay dawladnimada iyo awood waa ummadda waan ka raali gelinaynaa raali ahaada baan leenahay waayahay Cumarow aad iyo aad baad mahadsantahay shacabka reer Jabuuti iyo shacabka reer Soomaaliya sidaa kuwa ku kala go'aya ma aha wadada walaalaha Jabuutina waxa dhashay Soomaaliya waan ognahay halgankii qadaada iyo xornimadii Jabuuti in Soomaaliya ay qayb weyn ama qayb libaax ay ka qaadatay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay oday Soomaaliyeed oday qayb ka soo qaatay halgankii xornimada Jabuuti aad ka mid ahayd raggii Jabuuti daraadeed loo xiray oo marar badan xabsiyo ku galay oo xataa Paris lagu xiray bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inagoo soo koobi kareen abaalka Soomaaliya ee Jabuuti ku leedahay hal qodob ama laba qodob oo aad xasuusatid oo Soomaaliya abaalkeedii aad xusi kartid ay Jabuuti u gashay qodob ama laba Cumarow waxa weeyaan adeer Soomaaliya lama soo koobi karo wixii ay noo gashay laakiin waxyaabaha ugu weyn ee la xusi karo waxa kamid ah markii ay gobonimada reer Jabuuti gobonimadayadu markay soo dhaweey Ethiopia waxay u diyaar galowday bay ahayd inay nagu soo duusho ay xoog ay ku qabsato Jabuuti oo ay muquuniso iyay ku tala gashay dawladda Faransiiskuna inay hoosaasinaysay arrintaa iyo meesha ku jirtay waxa weeyin dagaalkii ay Soomaaliya gashay ee ay ku burburtay ee cadaawada loogu qaaday ee meel kasta maaragtay ay ku heshiiyeen bari iyo galbeedba nimankii quwadihii caalamka ka talinaya Ruush iyo Mareykan lahaay wixii loogu heshiiyey Soomaaliya waxay ahayd dagaalkii ay Soomaaliya Jabuuti ku badbaadinaysay ee ay maaragtay gobonimada Jabuuti ku badbaadinaysay ee maaragtay ka bilaamay من فرنسيارك كينيا إلا يتولى أو مارك تنول جرا بقول كيلومتر مقالة على السبيل حجرة 5 كيلومتر دقالك انت صورت اللقو قاضي ان لقو مقونية إثيوبيا أين الصوماليا نديبو قصو كعويدا إلا ما تأيني باتدين لا قنقورنيسو وحي أهي waxyaabihii Jabuuti lagu badbaadinay ee Soomaaliya ugu weyn waxyaabaha mid iyo laba maahine yaani waa waxyaabaha aan marnaba ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Jabuuti waa wada dad isku mid ah nahay in la ilooba aan ahayn waxa kamid ah caliyow arintaaba kamid ahayd dhibaatada ay Soomaaliya ka soo gaadhay ee iyadu nafteedii ay u baabi'isay Jabuuti ay gobonimo u qaadato iyaa kamid ahayd waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay markale Cumar cilmi khayr waad mahadsantahay cali aad baad mahadsantahay adeer aad baad waa yacmi
daawadeen intaas ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi ama waraysigaasi aan la yeeshay Cumar Cilmi Khayre oo kamid aha ama kamid ah halgamayaashii dadka reer Djibouti tan iyo intii xornimada loo ordayay tani kullu keen dibadda daawadeen barnaamijkan kale inta dib u kulmi doono waa Cali Xalaalo dhamaantii midii ka tagay sida iyo nabad gelyo